Steve Snakia oo ah aasaasaha labaad ee shirkadda weyn ee Apple ayaa ku tilmaamay isla markaana ugu yeeray madaxa guud ee shirkadda Tesla SpaceX sidoo kale ah hantiilaha iskale shirkadda Twitter Elon Musk in uu yahay hogaamiye khuraafaadi ah oo hogaaminaya waxa uu ugu yeeray mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee horumarka sameeyay dunida sidoo kale wuxuu ku tilmaamay nin gabi ahaan baan daacad ahayn tan ayaa imaanaysa iyada oo halis aad u weyn ay soo food saartay inta badan wadamada reer galbeedka iyo dunida oo dhan kolkii la ogaaday xogo xadle oo la xiriira waxa loo yaqaan nidaamka tiknoolajiyadda ee gacan ku sameeyska ee artificial intelligence iyadoo marmar ka dambaysa ay soo baxayaan walaaciyada waaweyn ee dhinaca amniga markii ugu horeysay la shaaciyay in qalabkaasi xataa ay dawladaha waaweyn ee reer galbeedka afgambi karaan marka hore taa ku soo dhawaada barnaamijkeena warwareyn oo aynu ka soo qaadan doono qodob kale oo xisaab badan leh oo ku saabsan halista ka soo jijiilay tiknoolajiyadda dunida ee lagu sii talaabsanayo dadka qaarkoodna ay horumar u mareynayeen sanadihii ugu dambeeyay oo dhan waxaa jiray tartan aad xoogan oo dalka kale doonayay inuu horumar weyn uga gaarsiiyo kana faano horeeyo kolka ay timaado waxa laga gurubsanayo hanaanka tiknoolajiyadda ee horumartay iyada oo dunida oo dhan isku baacsanaysay inuu dalka kale uu ka gacan sareeyo arrintaasi taasi waxa loo arki karayay guul ballaaran oo aadamuhu gaadhay sidoo kalena dadka qaarkood way ku tooqayeen dadka hal abuurka dhinaca tiknoolajiyadda leh ee markaasi faraha ka xiran loona yaqaano dadka in dheer garadka sida weyna kombiyuutarka intay ugu mabeen kala dhigdhiga kana hortaga halisaha waaweyn iyo kuwa kale ee faraha ka jabsan ee iyaguna hanaankaasi caanka kuwa kana hortagi kara duulamada waaweyn ee dhinaca internetka waxay ahaayeen kuwa shaqada ugu badan hela isla markaana waa baahida weyn ee loo qabo taasi kolkii ay timid waxaa kale oo nolosha oo dhan soo food saaray ciriiri aad u weyn iyadoo qof walba oo raba shaqo yar inuu qabto uu u baahday inuu haysto wax loogu yeeray qalab tiknoolajiyadeed oo ugu yartahay telefoon caaqila smartphone ama ay ka mid tahay computer inuu haysto machine ama se laptop isku laablaabma taasoo dhammaantood lagu tilmaamay inay yihiin waxaan looga maarmi karin xataa haddaad dukaan yar furato dadka qaarkoodna shaqaba kuma siinayaan haddaadan email lahayn ama si aadan haysanin telefoon ay kaala soo xidhiidhaan sida ay qabaan dhammaan khubarada dhinaca shaqooyinka ee wadamada horumarka yar gaadhay xataa wadamada dunida saddexaad oo ayaga lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu dambeeya ayaa gaadhay hanaano la yaab leh oo haddii aad dukaan yar oo kama soo gasho dukaanka hanaanka wax lagu iibiyo islamarkaana lacagta loo ilaaliyo ama kaashiyeerka rasmiga ah aduu waxaad u malaynaysaa qofka lacagta kaa qaadaya laakiinse kaas maaha oo wuxuu adeegsanayaa safar yar oo meesha yaalla islamarkaana wuxuu iskaan gareenayaa ama uu jac ku siinayaa group yar oo halkan yaalla dabadeedna waxaa qormaysa lacagtu intay tahay tiyoo ku xisaabtamaysa akoonkiisa taasi waxay yaraysay hanaanka khasaaraha ay gaari kara hantiilayaasha waxayna kor u sii qaaday baahida loo qabo tiknoolajiyadda hase yeeshee ciduna ma moogeen inay jiraan dhibaatooyin waaweyn oo ka dhashay hanaankan waxaana sidoo kale jiray duulaamo waaweyn oo kolkii dambe loo bixiyey cyber attack ama weerarada dhinaca internetka ah waxay ahaayeen kuwa dawladuhu iskaga argoosanayeen dagaallo aad u ba'an ayaa la iskula galay internetka dhexdiisa waxaa jira dawlado iyagu caan ku ah inayba ka macaashaan dagaalada noocaas oo kale dalka waqooyiga Kuuriya ayaa noqday wadanka loo cimaamaday inuu isagu hogaaminayo dadka ku shaqeysta baada dhinaca internetka iyagoo adeegsada wax loo yaqaan farsamo yaqaano waaweyn oo gacanta aad uga shaqeeya sidoo kalena leh hal abuur la yaab leh iyo indho fiiqan oo ay ka dhex dusinayaan kombiyuutarka dabeetana ay soo groupsanayaan ama xayrayaan qaar kamid ah ayaa leeytooyinka iyo macluumaadada waaweyn ee shirkadaha qaar kamid ah dunida iyo sidoo kale inay dalalka qaarkood ay khalkhal gelinayaan hanaanka habsami socodka dawladnimada tusaale ahaan marka laga hadlayo safar meel wax ku kaydsan waxaa khasab ah in ay jirto dheyto ilaalinaysa taasoo ka dhigan in uu jiro website taasoo la xidhiidha internetka taasi waa meesha la ataagayo ama se la bartamaysanayo tiyo ay intaasoo dhibaatooyin xoogan iyo faa'iidooyin intuba ay jireen haddana dhinaca isku socodka wada xiriirka dunida iyo wada shaqaynta ayaa sahlanaatay waxaa la arkay in qof jooga qaaradda Afrika uu ka shaqeeyo dalka Mareykanka qaab online sidoo kale waxaa jirtay in dadka ku dhaqan dunida loo yaqaano kuwa horumarka ka sameeyay internet ee waxa loo yaqaano information technology ama IT-ga sida wadamada Bangladesh dalka Hindiya Pakistan iyo kuwa kale oo koonfur bari Asia u badan ayaa ahaa dadka ugu badan ee ka faa'iiday arrintaasi taa waxaa sii dheer in shirkadaha dhinaca isgaarsiinta ee iyaguna baraha bulshada Facebook Twitter YouTube iyo sidoo kale hanaanada kale ee ka midka yihiin Weibo oo dalka Shiinaha aad looga jecel yahay laga isticmaalayay isla kombiyuutarada internetka iyo sidoo kale isticmaalka khadadka waaweyn haatanse
taas waxay dhalisay inay aadanuhu ka fakeraan inay samaystaan hanaano kale oo dadka looga maarmo iyo cid shaqooyinka u qabanaysa oo in kombiyuutarada laftooda la baro in dadku waxa ay gelinayaan ayagu isgelgeliyaan waxa ay fahmayaan dadku ee luqadda lagu yaqaano information technology-na iyaga lagu beero kadibna ay iyagu ka shaqeeyaan taasi markii horeysay waxaa la qaaday dhowr barnaamij oo loo yaqaano GPT-4 waa wax horey loo sii programiyey oo marka gabi ahaanba kombiyuutarka ku jira oo marka ay timaado ayagu isku shaqaalaysiinaya waxaa kaloo la sameeyey waxa loo yaqaano ChatGPT oo isaguna ah hanaan kuu jawaabaya marka aad doonayso macluumaad ku saabsan tusaale ahaan adeeg lagu qabto jaamacad ayaa doonaysaa inaad xarayso oo aad ka dalbato application ama aad apply garayso ama se waxaad qabtaa su'aalo waxaa kula hadlaya ChatGPT kaasoo markaasi kuu fududeynaya su'aalahaada wuxuuna markaasi xasuusanaya dhammaan programyadii hore lagu shubay dabeedna ka daro dibidhal ayaa timid oo sida uu sheegaya Steve Wozniak haatan dunidu waxay ku talaabsatay hanaankaasi ka duwan qaar kamid ah aqoon-yahano kala duwan oo dunida oo dhan ayaa ku baaqay in la joojiyo horumarinta ChatGPT iyo sidoo kale GPT-4 hanaanada dhinaca waxa loo yaqaan artificial intelligence oo ay ku tilmaameen inuu gabi ahaanba noqonayo mid ka awood badan nooca 4 ee hore aan u sheegnay iyagoo sheegay xataa inay la imaanayaan masiibo weyn warqad ay soo saareen khubaro dhinaca internetka ku takhasusay isla markaana cilmiga teknolojiyadda ayagu aad u bartay ayaa waxa ay ku qoreen wargeyska loo yaqaan iyo macadka daraasaadka la yiraahdo The Future of Life Institute waxayna uga digeen in haddii la sii horumariyo hanaanka AI-ga inuu keeni doono ammaan darro dunida oo dhan ka dhacda iyo afgambi dawladaha lagu sameeyo oo culaar ahaan ay u qabsadaan qalabkaasi dabeetana hadhowta laga furfuri kari waayo waxay sheegeen in dad xumo farayaal ay gacanta ku dhigi karaan maamulka hanaankaasi oo noqon doona mid macluumaadku soo banaanyaad yahay isla markaana aan loo adkee karin sida loo adkeeyay hubka nuclear-ka waayadii ugu dambeeyay isagana laga baqay inuu farabaxsado warqadda ay qoreen khubaradan oo isugu jirta iyagu maalgashiyaal kuwa ka shaqeeya hanaanka ayaa ku tilmaamay inay masiibo aad u weyn noqonayso bishii November sanadkii 2022 macadka daraasaadka OpenAI ayaa waxaa laga soo saaray warmutiyeed oranaya hadii la sii horumariyo AI-gu inuu keeni doono masiibo aad u weyn oo dhinaca warwareynta iyo xogaha iyo macluumaadka shakhsiga iyo in ay gabi ahaanba la ogolaaday in la abuuro bili aadan aan naf ku jirin oo ka dhigan dad garaad leh laakiinse aan naf ku jirin oo aan la dili karin waxay ku tilmaameen hadii la sii ballaariyo aqoonta ku aadan internetka in gabi ahaanba ay dunidu oo dhan ay khasifayso isla markaana imaad doonto xasiloo darro aad u weyn waxay sheegeen in qaar kamid ah aababku durbaba ay haatan noqdeen kuwa macluumaadada dadka lagu xado mid kamid ah khubarada waaweyn ee loo yaqaan iyaguna internetka horumar ka sameeyay goorsi horeysay waxa uu ku tilmaamay in ay la mid noqonayso in la ogolaado hanaanka AI-ga in la sii bacrimiyo in la dhameeyo dunida isla markaana la soo afjaro wuxuu sheegay in qaar kamid ah dadka xun ee maanta caalamka jooga sida madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ay u adeegsan karaan bili aadan ahaan agabkan kolkaana ay kaga imaan karaan dhibaatooyinka iyaga ku xeeran dabadeedna ay afka ciidda u dari karaan xubna madaxa guud ee shirkadda OpenAI Sam Altman ayaa u sheegay aqalka sanadka dalka Mareykanka in ay jirto jawaabo yar oo ku kooban waxa ka imaan kara horumarinta faraha badan ee teknolojiyadda lagu sameynayo isagoo ka digay inaan iyaga hadhowta loo raaca karin wixii ka yimaada waxa uu sheegay hadii dadka qaarkood ay si khaldan u isticmaalaan hanaanka AI inay dhali doonto masiibooyin dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale inay halis geliso amniga dunida gaar ahaan dalalka waaweyn ee reer galbeedka ku jiraan iyo inay gacanta ku dhigaan canaasiir ayuu yiri roog ah oo wala jeedo dadaan daacad ahayn oo iyagu dulme falayaan waxa uu ka digay in haatan la sameeyo qaanuun caalami ah kaasoo ah mid qarameed iyo mid dunida oo dhan u gaara tusaale ahaan wuxuu sheegay in golaha ammaanka qaramada midoobay iyo dunida laga rabo inay hanaan heer sare ay la yimaadaan waaxda European Parliamentary Research Service leeyahay oo iyadu baarlamaanka qaramada Yurub u qaabilsan hanaanka science-ka iyo cilmiga ayaa waxa ay sheegeen in aysan jiri karin wax ka xun in la arko ay yiraahdeen dhibaatooyinka AI waxayna sheegeen hadii aan AI-ga hadeerta laga hortagin isla markaana aan la yareenin tababarada heerka sare ah ee aqoonta loo gudbinayo iyo dheetooyinka lagu kaydinayo inay taasi dhalad doonto dhibaatooyin xooggan oo dad kale gacanta ku dhigaan haddaba waxa isweydiin mudan waa maxay waxyaalaha ugu masiibada badan ee dhici karaya hanaankan hadii wax walba la baro isla markaana ay luqadaha oo dhan fahmaan oo ah arinta ugu weyn oo la doonayo hadda in lagu kaydiyo dhammaan luqadaha caalamka oo dhan laga hadlo waxa sahlanaan doonta in la isxan dhageysto isla markaana dalba aysan wax u qarsoonin sidoo kale waxa dhici doonta ayaa la yiri in xogaha si sahlan loo turjinto oo hadii luqad kasta laga helo ayaa la yiri AI oo la fududeeyo eray ila eray waxa dhalaysa in qofku uusan u baahan in luqadaha caalamiga barto kolkaana uu luqadda uu rabo ku turjinto tiisa afkiisa hooyay ku hadlayo dabadeedna isagoo isticmaalaya isla programkaas
uu isticmaalo ayaa la yidhi hanaanka nooca loo yaqaan artificial narrow intelligence taasoo gabi ahaanba wiiqaysa ayaa la yidhi hanaanka sidoo kalena waxa ay sidoo kale u heli doonaan xogaha waaweyn ee ku aadan hanaanka dhinaca waxaa la yidhi warwareynta iyo xogaha qaran ee dal kasta taasi waa dalalka reer galbeedka cidda ka baqaysa dalalka reer galbeedka ayaa iyagu isku arka in haddii xitaa la sameeyo hanaan noocan oo kale ay sharciga ku dhaqmi doonaan laakiin waxay wadnaha farta uga hayaan in dalalka kale ee la tacaamulaya iyo kuwa kale ku xeeran ay sida weyn isku hayaan aysan noqon doonin kuwa u hogaansama shuruucda wadamadooda kana dulbooda gacantana ku qaata sharciga si kastaba ha noqotee hanaankan cusub iyo cabsidan wadna korkorka ay kusoo biirtay dunida ayaa imaanaysa iyadoo maalin ka horna uu madaxweynaha dalkaasi Belarus Alexander Lukashenko uu ku dhawaaqay in wadan kasta oo kusoo biira taxalufka wadamada Ruushka iyo Belarus inay noqon doonaan kuwa hela hubka nukleerka taasoo ilaa hadeerto aysan dawladda dalkaasi Russia beenin waxaana wadnaha farta looga hayaa inay dunida hadeerto ay gabi ahaanba ay ku sii siqayso jahawareer iyo hantaadhula